إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أيام ما تسكله مضن إن لو مهد عليه والله أمانه حلي والبيه حالد والبابا لكماله تبارك وتعالى لما يسترنانتي ساء لمنان لهي iyo sidoo kale wax kastoo mahad keena ama ammaan keeno isagu u bixiyay oo nicamkiisa aan la tira koobi karin ah. labada qodob rabbigan tabaaraka wa tacaala waa ku amaanayahay waana ku mahadsan yahay. nicmooyinka ilaahayna siiyay waxa ugu qiimo badan oo ugu qaalisan diinta, iimaanka, caqiidada saxsan, inaad rabbigaa taqaano kuna xidhan tahay. nicmo ilaahay bixiya taasaa u qaalisan. nicmadii diinta waxaa ka mid ah inaan salaadii maqribka tukannay, masaajidkan jaamicana ku tukannay, jamaacana ku tukannay. ilaahay baa ina waafajiyey, isagaan weydiisanayna inuu naga aqbalo. nicmooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu inoo sameeyey xilliyo ama mawaasim ama wakhtiyo aynu adduunka ka sahay qaadanno oo aynu khayraadka badsanno, iyadoo xilli walba iyo wakhti walba iyo bil kasta iyo usbuuc kasta iyo maalin kasta ay waajib inugu tahay inaan ilaahay caabudno ilaa geeridu inooga imaanayso. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. ayaa haddana rabbi wuxuu noo sameeyey xilliyo si gooniya mudnaan u leh oo loo baahan yahay dadaal ziyaada in lala yimaado. waxaa ka mid ah xilliyada bisha barakaysan ee ramadaan oo ilaahay fadilay, khayr badan iyo wanaag badanna ilaahay dhexdeeda dhigay, faa'iido badanna inoogu fadhida, faa'iido weyn inoogu fadhida. maalmo yar baa inooga laaban. ilaahay baan weydiisanaynaa inuu nabad inagu gaadhsiiyo, caafimaadna inagu gaadhsiiyo. haddii uu ina gaadhsiiyana rabbi tabaaraka wa tacaala ka faa'iidaysigeeda inuu inoo fududeeyo o ina waafajiyo. bishan barakaysan waxyaalaha aadka u qiimaha badan ee laga faa'iido waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo taskiyatu nafs. taskiyatu nafs oo macnaheedu uu yahay in nafta la daahiriyo oo nafta la hagaajiyo oo nafta la nadiifiyo. waa naftaada kugu jirta wey. faadooyinku ugu waaweyn ee laga helay ka mid nafta in la daahiriyana oo la hagaajiyana bini aadamka liibaantiisaa ku jirta. inaad adduunka liibaanto ood aakhara liibaanto waxay ku xidhan tahay in naftaada aad taskiyeyso, inaad naftaada hagaajiso. aayado badan oo qur-aanka ka mid oo alla macnaha ku tilmaamay. waxaa ka mid ah qur-aankii hadda maqribka laynagu tujinayey, ragcaddii dambe imaamku wuxuu inagu dujiyey suuratu shamsi. suuratu shamsi iyadoo dhan
tiir dhaxaadka ay ku wareegayso iyo macnaha ay ku wareegayso waa qodobka ah nafta in la daahiriyo qaybteeda hore rabbi tabaaraka wa tacaala 10 dhaarood oo istaba yaallu dhaartay 10 dhaarood oo isku xigta oo qaarna alle uu naftiisa ku dhaaranayo qaarna uu makhluuqaadkiisa qaar kamida ku dhaaranayo 10 dhaarood buu isdaba dhigay والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 10 dhaarood baa halkaa ku soo aroortay oo alla dhaaranayo xagee loo socdaa oo maxaa loo dhaaranayaa biyo dhacu waa ka marka qad aflaha man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa liibaanay ruuxii naftiisa daahiriyey waxaa khasaaray oo hoogay ruuxii naftiisa dayacay ama aasay ama qariyey intaasoo alla ku dhaaranaya liibaantaadu marka waxay salka ku haysaa inaad liibaanto inaad naftaada hagaajiso inaad khasaartana adduunya aakhiraba sababteedu wax weeyaan inaad naftaada dayacdo rabbi tabaaraka wa tacaala macnahaasuu inagu fahansiiyey suuradda idil intaa markii la sheegay iyo alle wuxuu u sameeyey tusaale qaacidaa la dejiyey qaacidadii baa marka miisaal loo sameeyey tusaale aad wax ku garataan qad aflaha man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa laga dambaysiyey kadabat thamuudu bidaqwaaha id inbacatha ashqaaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqata allahi wasuqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yaqaafu cuqbaaha niman reer thamuud la yidhahdaa tusaalaha laga dhigay iyo miaalka maxay ahaayeen rasuul buu ilaahay u diray nebi saalix baa loo diray calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam nebigii markii loo diray way beeniyeen inay beeniyeen waxaa keenay kibir iyo qooq yaa isla weynan santaag ma bashar baan raacaynaa ma kanaanu dabagelaynaa calashaani maxaa keenay naftoodaa wasakhaysnayd naftii wasakhaysnayd baa waxay keentay in ay rasuulka ilaahi iyo kitaabkii ula yimidba beeniyaan tii baa waxay keentay in la halaagoo la baabi'iyo qaacidadu marka waxa weeyaan nafta khasaartay waa midda la dayacay nafta liibaantayna waa nifta la daahiriyey oo la taskiyey u fiirsada quraanka siduu wax u cabiray alla wuxuu ka cabiray man zakkaaha zakka bimaana fa'ala wa hawl adag waa wazanka noocaas arabiyada markuu ku yimaado fa'ala oo mudaaf ah waa hawl adag waa ninkii naftiisa shaqo adag ka qabtay oo taskiyey oo la jihaaday ninkaasaa liibaanay waa meesha waxaa ka soo baxaya arinta nafta taskiyeynteedu inaysan fududayn oo hawl adag iyo shaqo adag u baahan tahay tacbiirka quraanka laga fahmo markaluu rabbigeen tabaaraka wa tacaala mar kale ayuu macaani noocaas inoogu sheegay aayada quraanka ka mid waxaa ka mid ah laba meelood buu rabbi wuxuu ku yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika humul muflixuun ruuxii naftiisa bakhaylnimadeeda laga ilaaliyo kaas unbaa liibaanay baa alla yidhi tabaaraka wa tacaala naftaada bakhaylnimadeeda lex jecladeeda gacan adaygeeda haddii lagaa qabto waabad liibaantay oo maxay ku gacan adag tahay maxay bakhayl ku tahay ma xoolaha keliya ma xoolo keliya maaha au fahmin adin sidaa xooluhu waa ka mid xuquuqdii xoolahaaga waajibka ku ahaa naftaadu inaad bixiso ma rabto way kaa celin way ku bakhayli cilmigii
lagu siiyey ee ahayd inaad dadka gaadhsiiso naftaadu way ku bakhayli khayraadkii iyo daacadii iyo waajibaadkii lagu faray inaad la timaado naftaadu way ka bakhayli xumaantii iyo macaasidii iyo dunuubtii lagaa reebay naftaadu way ku bakhayli way rabtaa marka naftaada bakhaylnimadeeda hadiiba lagaa ilaaliyo ilaahay kaa qabto waad liibaantay laba meelood buu quraanku sida uu sheegay rabbi tabaaraka wa taala ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نفتاس كوجو جرتوا هذيك ولي ما يستري عدو قاقي بعد هذا كجرا سدح عدو بينو لنا هاي سدح عدو مركل لقرب عدو قال كيه بني آدم كمركل لقرب سدح عدو بينو لنا الدنيا دوا عدو ضلال كذا يقروح ذا وعدو آخرة إنه عدو كتاه نفط إنه قد جرتاي وعدو وضنيه إني مصالح إنه عدو كتاه شيطان وعدو وكل قد استقع كذب بيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدح ذو عدوا شيطان إنه كاريو وكارلو مرصدو ودنتي سكاجارو نفط هذا أصومره iyadu isticmaala iyadu la saaxiiba iyadu u sheekeeya adoo lagu wato baad aragtaa war wali sitay balaayada isida tamaayta ya ninkii baa naftaada saaxiib la ya ninkii khayr ka darna ayaa naftaadii wata naftaadina aday ku wadataa sidaas daradeed buu rabbigan tabaaraka wa taala meero kamida quraanka yu labadooda isku lamaaniyay سورة القرآن كأقدم بيسا سورة الناس محل جهلي هل قضب بيضنا ياتير نحاض ويكور إيجيسا معناها يكور إيجيس هو هالمعنى معناها سمعوه هاي بني آدم كور ربي مجنجلية لبع عدو أوليه هاي نكم مجنجلية واحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الله ساعد أطيل ما انتبهت مجنجليسا قد مجان أطه محد كم جلسة من شر الوسواس الخناس مدوح وسواسي وسواسين بدن وهدنا جبشي لو مش بدن يا كاشر كيساد الله كم جلسة طيب كاس حاجة وسواسية حاجة كشقيستا يا الذي يوسوس في صدور الناس ضدك اللاب تودو وسواسية هل كاسو كشقيستا وقلبك وحرمتي شرك وماشي دونيتان كاو كإيماني وماشي واحد كستوت عيس أي كسر فليس حرمتي شرك فرديا هل كاسو مركا أشياء كينية هذيك الصومادا أركين هذول مساجك كوجر أما إسكش قيسنا أما تشوجه قلبي جاك بلايا كلام معمولنا يسمع روحي وشق يسمع حباك وصور نعه موت كذا وكسر يا حبا دري ميسا ورياء وطا يا الذي يوسوس في صدور الناس هدوك عنك كآدي لها ويدامي لها هدو لك تكاقلي لها ويدامي لها يا هدو لك تكاقلي لها ويدامي لها لكن حقيبه قلي الذي يوسوس في صدور الناس مربع هدو قلبك فريستي إنديه نوو معمولا دقها نوو معمولا كعمها نوو معمولا شركة نوو معمولا لأن حرمتي بفرديا سما قرأ هل كاسو إيماني هل كاسو مرك أشيكين يوسوس في صدور الناس ننك عدو جهد إلهي كم جنجليسه يوكا كوبية من الجنة والناس قيب واتشن وكا قرصوني أين أركين إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه سواء إذن أركع لكن ما أركتان إذن كوا قيبت الشنك إنك قرصون قيبت اللباد كوسواسين عدو كوا وضد وشيطان ضد أواه شيطان كادت كاللبوا يا مرك مدوى بني آدم حن oo gaal ah oo faasiqa oo munaafiqa oo xumaanta dadka ugu yeedhaya
shaydaankii qarsoonaa ee jinniga ahaa shaqadiisoo kale uu qabanayaa saas dara isaguna waa shaydaan bini aadan ka labaad ee isaguna halkaa soo gelaya wannaasi soo gelaya waa naftaada ilaa naftaadu waxay soo geli wannaasi ya naftaaduna wannaasi waay iyada lafteedu way ku waswaasinoo shaydaankay la shaqaysanaysa sidaa halkaa la isugu lamaaniyey ayaa nebiguna isugu lamaaniyey sal alla alay wasalam ducada dheer acuudu bika min shari nafsi wa min shari shaytaani wa sharakihi buu nebigu dhihi jiray sal alla alay wasalam ama wa shirkihi alla waxaan magan kaaga ahay oon kaa magan gelayaa naftayda sharkeeda iyo shaydaanka sharkiisa iyo shirkigiisa ama dabinkiisa haddii la yidhahdo shirki la dhahana waa gaalnimada iyo shirkiga haddii sharak la xarakeeyo waa sharakihi waa la xarakayn karaa wa sharakihina waa dabinkiisay noqonaysa labada macnobana waa laba macno sax marka nebigu muxuu isku lamaaniyey sharka nafta iyo sharka shaydaanka aayadduna maxay isku lamaanisay min aljinnati waannaas saas daraaddeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah markuu aayaddaa fasirayo wuxuu leeyahay wannaasi xadiidka isagoo soo qaadanaya wannaasi waxaa laga wadaa nafta bini aadamka naftaada sidaas daraaddeed cadowgaaga haddii lagaa qabto waad liibaantay cadowgaa kala daran cadowna xoolahaaga iyo dalkaaga iyo khayraadkaaga iyo carruurtaada iyo jidhkaaga ayuu ku socdaa cadowna wuxuu ku socdaa diintaada iyo aakhiradaada iyo caqiidadaada iyo jannadaada ayuu duulaan ku yahay labadooda kee daran ya cadow ku dilay oo aakhiro kuu diray iyo cadow diintaadii baabiiyey kee daran ya warkii diinta galay baa daran soo ma laanna hadduuba ku dilo waabaad dhiman lahayd marnaba soo ma laba gooro waad dhiman lahayd la jihaada naftiisii isagaa dagaal ka dhexeeya dagaalka naftiisa kala dhexeeya maxay tahay naftu xumaan bay rabtaa wuxuu kula dagaalamayaa inuu xumaanta ka celiyo naftu waajibka ilaahay inay dayacday rabtaa xadhigga goyso wuxuu ku qasbayaa uu kula dagaalamayaa inay gudato waajibka iyo xaqi ilaahay ku lahaa naf baa naftiisii buu la dagaalamayaa jihaad buu kula jiraa jihaadka nebigu tilmaamay mujaahidka dhabta ah waa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada nafti maxay u baahan tahay marka jihaad bay u baahan tahay jihaadka kan gaalada uun xabadda lagu rido ama lala dagaalamo kaa keliya meehee mid ka horreeyaa jiroo naftaada la dagaalan cadowgan shaydaanka la dagaalan kuwaa markaad ka soo gudubto dagaalkooda buu kan kale imaan karaya ama aad ku guulaysan karta cala alaqal sidaas daraaddeed almujaahidu man jaaha nafsahu fi illaah marka nafteenna waa inaan horta baranno waa inaan ogaanno ya haddaabadan is-ogeynba ka warran haddaad taagan tahayba adeer ya balwaddaydaan daacad u ah ya naftaadaa daacad loo noqdaa oo naftaada haddaad daacad u noqoto hagee ku geyni daacad looma noqdee waa la iska celiyaa waa lala dagaalamaa siraac daakhiliya looltan gudahaaga ah baa la galaa looltankaa iyo dagaalkaa adag markaad gasho naftu asalkeeda sida lagu abuuray waa inay xumaan leedahay xumaantana jecesha xumaantana ku amarto dabeecaddeeda asalkaa saas waa allah wuxuu inoogu sheegay fii suurati yuusuf qisadii nebi yuusuf iyo haweenaydii ninkii wasiirka ahaa ee nebi yuusuf damacday qisadoodii markii la gebagabaynayey ya ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay arrin muhim ah oo ku saabsan in layna baro nafteenna adaa layskaa barayaa maxay tahay qisada gebagabadeeda hadalka ma gabadhii baa leh ma haweenaydii baa leh mise nebi yuusuf baa hadal kale labadaba waa laba tafsiir wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la'ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii naftayda marna beri yeeli maayo waxaana naftayda u beri yeelaynin naf sideedaba
وامد حمانتا أمرد آدو بدي سوا حمانتي آدو أمرتا ددك إلا إن إلهي أن حريستي موي هل قاو في الصدى أصل كنفتو وإن حمانتا آد كوفرتو زينة كوفرتو ديلك حق دردا كوفرتو محوها دعا كوفرتو أنش حمدي أخلاق حمدا كوفرتو وقتك إن الله مسو كوفرتو واجباتك إن ضيعت كوفرتو حمان إن كوفرتا أصل كأ لكن ربي الإسلام آيات وحلينا وشيء نفع النوع أهين وآوي إلا ما رحم ربي مد إلهي أن حريستي بأجرتو يدو أنا هين أمارة بالسوء أمارة بالسوء نفط أصل كذا برك واساس ظلمي يتعشى وحبيت ظلمي وكإلهي القرآن الكريم كأنه وشيء لا وصفه بني آدم كأصل أوليه لا وصفه أصل أوليه ومحيين والظلمك يجهلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع قدمه إنه كان ظلوما جهولا لوضب وأفعل المبالغة يا من ظلم بدن وجهل بدن وابن آدم ده واحد يساسا صبر سيدا نفتي أهيد مركز الله دقالنتو وضوء نردقاتو ود فهمتو ود حيالة هذه ميشاها ميلاها اللقالات دقال لما قراتو ود دقال هول مانا أتكو قادو دقال هول مانا وحبر يبني أتكو قادو نفتا إيادي إيه صح مركو هوري يخربنتهي لكن مركز ضمبي مفول أتكا يعني ما إيرانا جيسيد معه اسم السوتاكتو صح مركو هوري يكو أبصن مركو هوري يكو هروسن مركو هوري يكو بعصتي اسكو دي لكن مركو تكو بدا حضيكتو ربطا يكو عرقتو ويزديبي حد قاديسا مرحلة مركو دحو دقالكي او كانوا نتيجة ويسود بعدي لكن ولي ماذا كأتكاني واد لقى تنتان مرنا ويكون لقى دا مرنا واد لقى دا وانين أيضا كلا أتكين صوما مركز إسشان مرنا ويكون لقى دا مرنا دا لقى دا قرب دعواتي صوما ومرحلة كلا مرحلة ذي كأتكيد بتكسو قدبتي وحاتمد مرحلة قرب دعتي وامد الله كنت المامي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنف إيضين بدن أو الدقال بدن علماء وحيليهن تلوم صاحبها ويلومها صاحبها مر روحي أي كتر تبي كأتكاني مركز حمان كردي مركزو إيديا أو إيدينيا نام حساويش نام حتى واحد يحفر يسيس يا حد خلك كان يجلس يدي وإيدها يا مرنا يدي بإيدي سجي ودقال ما يا سرع ما كان حي مرحلة الله بعد ودقال كي النتيجة كذا لا تيوه مرحلة هذه أذن أقدر عنين ودقال كسي وضو يا وتكسي الريح ذو مركا واحد جاري مرحلة ضمبوت كأتكاتي ويسديبتو كعمها تاكتي ويكوه جنزتي ويتلي كتير هذا ديار بانا يتلي هو كان كادو قواني مركا بل وحي قاريسا مرحلة أي معانستو وحي شلي أي دبسنيسي وحي شلي أي تعلي ذي حمانتا أهينا أي كحجيموتو دبستو وأنا مرحلة علماء قاركود يكون شيئين يا الله كنت الماما يو سورة الفجر آخر كذا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نفتا حسلوني يا آخر مركي تشوكتي ضاعدي خير كيكو حسلوني أدونك مركي تشوكتان ليلا أدونك مركي تشوكتي ضاعدي خير كيكو حسلوني مركي ديماني يسو نفتا لغا قاضي ولا حسليو ولا دجي قبرك مركي قشو لو يمادو ولا دجينو ولا حسلين مالك الله صوص على قيامة والله حسلين ولا دجين صوت وحوي الجزاء من جنس العمل أدونك مركي تشوكتي إلهي دا عادي سمعان سنجرت ويكو حسلوني يا أيتها النفس المطمئنة
ونفتها مركا قرآن كمركا آخر سنة سواء معان سنة يسا يا ومعان سنة يسا لقى مكري كرو صلاة ده مركا كتشر توا معان سنة يسا وحول بيوجا معان الرب قد بيهور تاجن تبارك وتعالى وحكستو جمعيه حديث أبو داود وصوص هاري إمام البخاري إن التعليق كوك يعني علماء أي السجى يا رجل والسجى حديثكم وكالصحابة نين كم إذا رضوان الله عليهم صحابة نين كم إذا لو أني نصعطوا صحابة كم إذا أيا عدو باكد بيم وهبينيمو بقدين نواقبين عدو باكد بيمت هبين كيسي والسعودين بميل دقين markay meeshii dageen ayay labadoodii labay ahay way isqaybiyeen waxay yiraahdeen warnina mar ha seexdo kaas intuu hurdana ka kala waardiyaha qabto isbedelo way hebel mid baa iska seexday kii kalena waardi uu galay cadow baa iska waardiinaya khudu hidrakum wa taxadarkiina qaat kii intuu soo waardiga ku jira ayaa waxa dhacday wuxuu isku qanciyay ورنتاد ميلها إسكت تاجنا له يا واد محو هاي إسكمر مري له أما إسكفردين له إسكتكو صلاة قالوا أضو صلاة هذا كوتشي هذا نوارديها هاي لأن اسمه ديديش مركز عادي وكبقيش هذا التكن هي تسواردين وهذا التكن هي دقالبي صلاة يسوع إسكقله سو صلاة دي كوتشي له أي الله صو قبضي عادي وجاي كبقى هاي نبى أصو قبضي وأكسر دوادي ماله الليب كلا قاعد كرمركو تشوفه أيو الليب وهيستيبو كلفت يمكن الصلاة بكتيرة ليب كي مركو كلفتي أو كلعي نكى منا رواقين منا قيلين ليب كي انتو إسكسيبي أو بسكتوري أيو آير صلاة إسكوتي كل بعض بهذا كلفت كينا انتو إسكسيبي بآير صلاة إسكوتي كوس صدحات بهذا كلفت كيس صدحات انتو إسكسيبي بصلاة إسكوتي هذا بالله قلنا هذا ولي جاب جنجان هذه وما تشين تشين كي مركي ليبب كي كذا ما هذا ويسكتي نينك صلاة إسكوتي ديك بقى فلق له ديك بقى كذا هذا نيا صلاة دي سوي إسكوتي صلاة دي مركو لما يستي سحر رجله أيو صاحب كي كي يركع هذا الصوك عيب نينك صدح ميلود بديك وبودي والمحاد عي ورعدوا بصوك قبضوا يسيدن إياله ونينك أما ما تسكعلس أما ما ديك عز حاسدني معيد وحول ورنيه قرآن بان آخر السنة هيو هذا معان بالمعان بيوحي مرعيه قرآن كاينو يكلا قوان ديدنا قور قرآن كاسن ديدنا إنو يكلا قوه القور أديك مرض يا هي حلوة يتمر يسنكر لغو دري وحوذا معانا دو يسوكا قوشيهين حدين لغو قنوفته يا محاد سبيله سوى بودي ميست وحي معان بقرآن كاكا معان مر لكن هو قورمه ويبركاد معنيه سهشو سمارت نفتني ديبك غاري داوع غاريا waxa uga muhiimsan quraankan ay macaansanayso salaadan ay ku jirto nafti marka shalay la kari lahaa maanta waxa laga kari laayahay wixii shalay ay diidanayd ba maanta laga kari laayahay midaal labaad qabsada naftu markay daahir noqoto nadiif noqoto daacadii iyo khayrkii iyo wanaagii shalay dibka ku ahaa maanta macaan buu ku yahay معاصدي إيه ذنوبتي إيه وحي شلي أي شعلين ده خرار بون نقناه وصوريا نبي وقت جيسي صلوات ربي وسلام عليه لو قصة عظيمة أبو خطيبي قصة كبادي وحويان من صحابة النبي كم صلى الله عليه وسلم ولديه شري ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه بس زنا كان عظيم زنا دي مركي كان عظيم حمانتي كل عين markiiba dhuxushii iimaankiisa ayaa baraarugtay ila qalbigiisa iimaan baa ku jiray iimaankii baa marka booday uu soo orday nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow
وان زينيستي وسخ بان قلي دنبي بان قلي الله يداهريو النبي صلى الله عليه وسلم وإسقى جيسي حقه كجسوا جيدي وكجيس دنك إسقى جيسي وسوور يقول هذا حقه هروك جاي رسول كلا يوم هذه داهريسد هذا النبي يقول إسقى جيسي هذا أنا وسوور يقول حقه هروك سوق عليه رسول كلا معي يجي جيسني زمان داهريس ما هو الصخوبي داهري داهرين تقال الله معيته ببيها اللوجو قبيه ها ونبيا لو ظاهر نينزنست هلا يقبي ميا ما يحول كلوا ها ون اوغي هيسغنا وليبا وانين غورو هرمرو هوري او غورسداي ظاهرينتيسو وا دغخ ان لو ديلو ونا غرانيا ميشا او سocdo و فانسيه الظاهري برسولك الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورماعز ورأما أظن يرد دون كتيون أما يربع شيء سيء ما يبر رسولك إلهي أما يرد تابتيون ما يبر رسولك إلهي وحي الله ابن مجر ورمساسة ها قرابة سيادتك سيبودي بوحي وربالكع صوفيرية نينكن مسكح دي سبقومية من سوحبها سكا بلغة صهوبية إلا النبي صلوات ربي وسلام عليه حدود ددتك إن لحدوه وحدود الشريعة الله مريو أبلو أدكي هير روح الله جالسي هدي الشبه اللي هلي كرو معقول الروح حد الله جباتشين لجباتشين النبي صلى الله عليه وسلم مركو كسي شيء سيد هدو يسكتجي لها نينا ما ضبق عليه مركي لبعده وكتشي سيد هدو سيتجي لهانا نينا ما ضبق عليه مركي والنبي يقول لك قناي وكويل ورما تاتابته وان تاتابته هدو ديلان اسكتك بالديلا سمعت وأنا أقول كذا هدور ده لهنا إلهي دم داب ويتزال ديلا لما تصيد بقالين لكن هوشي وحول بمركز هور ضعفي أو وحول بسكو مرخاتك عاي يونبي يقول صحابة وحكوا رقبته مالها جي ودقح كدلا نكي ما عزها ولا قبت صحابة بناك يوزارين دقح بيكون باللابين مركي دقح يكون باللابين يا رواية كحديث كقارفة الماما ينبو عراري مرك حنوكي دقح نفتي وعر السقو عرري وحوليه ورهيقا هادينا بوليه نفنا وإريسا سيؤدب أردهيين بيكودلين واللودن بدافي يا لأن الحدود كفارات روح مؤمن كمرة دو حد قالوا دم حد كينا هي انتو قالوا هدي لحده ودم بداف لما قور إلهي أدونك عذابي ماي أدونك إن حد لغو مريون لعقابه هذا أنا آخر إسل الدم بيقول له عقابه ما دعي كرت مربع هدي لغو حده ودم بداف سؤال شادي ويدين بواحد مركا ما عزيا كيني ما أسكر بازو قبط بس هي يدي بلقادك يا سو جزء اسمكين ما حسوك حي نفتي سيبك حملي ويدي وقبتي وتشوقي واي لأن النفط مركي نظيفته الظاهر تهي وسخير وما تكيسن كريس سومارت قبر كانوا عجب لي باجرت ايدنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم oo iyadana sidaas oo kale zina ku dhacdo way uuraysatay nabiga uu timi sallallahu alayhi wasallam markaas waxa ku tiri ya rasuulallah innaha hubla min az-zina haweeneydin kula joogtay kula hadlayso uur bay leedahay uurkuna waa zino allah yahadu allah daahiri nabigu markuu hubsaday kadib sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri kactago ilmaha uurkaaga ku jira soo umul markaad soo dajiso ka soo baxo markaa kadib imo إلا لما حد كره يضع أورله لقى حلو ما دليل كره لأن علمي بقول لي مناي نبي يقول كعتة وصاء من الأرض ويتكتي وصاء من الشيء مركي أم الشيء كذب يضع علمه وضعته أتي من هذا الصان نقطة ومدة كذب مركز سيد الرسول كله علمه واقع ويجن بديمت وأنا أم لي يحد الظاهري نبي يقول صلى الله عليه وسلم كعتة سنوج markuu naaskaaga ka go'o igu soo noqo
صلوات ربي وسلامه عليه gabadhi ilmihi waa la noqotay way soo nuujisay taqriiban 2 sano ziyaada la nuujinaya markii ay naaskii ka go'ay kadib ayay ku soo noqotay nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ilmihi oo iyada naaskeedii ka kaaftoomay say u tusto inuu ka kaaftoomay naaskeeda isaga oo kibis ama rooti gacanta ku wato oo goosanahay ayay u keentay waxay rasuulka ilaahay wakaas isaga madax banaan cuntadiisu cunaya naaskaygiina uma baahna hal ay daahiriyo markaasuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam gabadhii in la xado salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ya war gabadha maxaa soo celcelinay inta maxay u soo noqonaysaa ma iska tagto hadday iska tagto lama soo qabteen ya waxa soo celcelinaya iimaankii iyo naftiyo daahira iyo nafteedo naf qiimo badan ahayd saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markii gabadha la xaday kadib waxay toobad keentay toobad hadii reer Madiina loo qaybin lahaa wada deeqi lahayd oo ma wax kale aad heli kartaa nafteediiba haday ku deeqday wax ka qaalisan bay bixin lahayd waxa kale bixin lahayd soo maaragt sidaas daraadeed naftaadu markay daahir noqoto daacadii ilaahay iyo khayrkiina way macaansan iyo wanaagii xumaantiina way ka xajiimoonaysaa iyo macaasidii way nacaysaa laakiin inaad heerka soo gaarsiisay maxay u baahan tahay ya shaqo adag hawl adag dagaal adag jihaad adag aan kala go' lahayn ila aad meel gaarsiiso ahmiyada haday leedahay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ku ducaysan jiray ducooyinkiisii kamid aha allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha ilaahu naftayda alla ka cabsigeeda si oo allah daahiri naftayda ilaahu naftayda daahiri oo ii taskiye midka daahiriya oo naf daahiriyada ugu khayr badan nabigeena maxamed wa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi atharu an-nas nafsan wa azka al-khalqi nafsan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi يعني بني آدمك يا مخلوقة نفط النبي محمد صلوات ربي وسلامه الطهارة ده يا زكاة يا وناجة يا قيمة هاي لهاي وحلا جاري كرمه بهبا هذا مع ذلك وحوينا بريا إن نفتك الشقينه ظاهرينه إلهي بويدي سنة يا النبي صلوات ربي وسلامه عليه سي ومدي سوق شيء يا أوبره إن أي هوشة يدي هول مهمة تاعي بشهر رمضان مرة أرنت سام مهم كواه إقالقة بشهر رمضان إنه سو آدم وجانس مرة جانس يدا ugu muhiimsan oo Ilaahay ina siinayo si aan nafteena u leeyliino Ramadan baa kowka sababtu maxay tahay sababtu Ramadan haduu soo galo habeenka ugu horeeyaba isbedel baa adduunka ka dhacaya isbedelka dhacayana waxa kamida nafta wixii support gareynayo taageerayo gadaal ka riixahay oo shayaatiinta kuwoodii si madax adkaaya dibka badnaaya waaweynaa yaa la xidhxidhaya jeel baa la gelinaya maradatul jin maradatul shayatiin xabsi baa la gelinaya silsilad iyo katiinada lagu xidhaya sidii ay bilaha kale dadka uga faa'iideysan jireen uga faa'iideysan karaan naftaadii hadii saaxiibkeedii xoog badnaa laga xidhay soo daciif ma ya soo daciif ma inay daciifta waxaad ku garanay habeenka ugu horeeya Ramadan uu soo galo masaajidaas aad arkaysay hadda iska banaan meel laga tukado la heli maayo ya hadda bishii lagu ma dhawaaqin ogow laakiin way dhalatay masaajidkii meel laga tukado ma leh tif war dadkan xagee ka yimaadeen xaafadda ma joogeen ya masaajid balba waa buuxa أوفيرس أفرق عدود وطوان دقيقة لغو تكنهايو نينكي أما هوينيدي أما ويلكي دالين يرده أو أدكيسان لها وحو تاقناني لبي كوية طوان رق عدود أما ميلها قاركود صدح يلا باترق عدود جزبا لغو تكنهايو ميلها قاركود لبي صدح جزبا لغو تكنهايو وتاقناني يا ساسو حوجنا استان بيبي كجرا بلاها كلنا 10 دقيقة 4 ركعات لو تكناي ما حملي كرت كل بلوق بو كو استاغي ودادك هدو قرانك دheereeyo وهباري يا ودادك يا naga qabta dacwa ba laga gudbay imaamki war ninka kaatiya naga qabta war muxuu idin ku sameeyay salaad buu dheereeyaa
ramadaan ma soo galay wixii shalay dadka ku dheeraa maanta ma dheera Soomaaliya soon sunna haddaad bilaha kala soomi rabto waa culus yahay laakiin ramadaan marka la soomayo fududa oo macaana war maxaa isbedelay wax badan baa isbedelay meesha waxaad garatay marka sirta ku jirtay aafadii waxaan oo dhan ka dambeysay baa Ilaahay qabtay naftaadu marka banaanka taala waa saaxiib la'aan waa garab la'aan waa tol la'aan meel cidlay ku taala soo chance weyn ma chance weyn ko waa marka labaade naftani waxay ku kibirtay ku qooqdo waa cuntadii cabitaanka markay dheregtay ka dartaa markay dheregto bay ku xoogaysataa xumaanta laakiin naftani markii la gaajaysiyo oo maanta dhan la soomiyo oo meelihii cuntadu marahayeen iyo xididadii iyo dhiigii iyo dhacaankii iyo daciifo naftii waa daciif naftii way tabar daranta waa qodob labaad oo naftaadu xoogeedu waa waxaad siinayso waa waxaad siinayso haddaad waxaan ka kala yarayso oo fuduulu tacaam iyo fuduulu sharaab ka yarayso isbedel baa imaanaya waa marka saddexaade naftaadu waa daciifo way tabar daran tahayoo ramadaanka khayraadka faraha badaneed samaynayso naftaadii waa daahirinaysaa waxaad khayr samaynayso soonkaad soomayso naftaadii buu daahirinaya salaadaad tukanayso naftaadii buu daahirinaya sadaqadaad bixinayso naftaadii buu daahirinaya cumradaad aadayso naftii buu daahirinaya طاعاتك نفتي بداهرينيا والرمضان بالك ضاع بدني ما جرت طاعاتك ومركله نفط وحي خربها هي او شر يدنب هوايا راضي وددكي خيركي بابط ضاعدي بابدت لجوجي كي هبينيه مالين بسيجارك اسكو دبا دارهي هبينكي بو خوغا ككبدا لكن مالنتي سيجارك جوجسي سوما مالين السيجار وا جوي كي هبينيه مالين بقاد عنهي هبينكي بس او سو هاري او ولي هبينكي قارنا و تكن قارنا و سحور عني قارنا و عشين maxaa soo haray oo qaad cuni marka qaadkiina waa yaraa sigaarkiina waa yaraa macaasidiina waa yaraa ki la qadar Allah ilaaha naga ilaaliye meelaha dumarka daba ordi jira wax raadsan jiray oo qarafaysan jiray ki qarafaysan jirayna soonkani shahwadiisii buu daciifiyo waaba tacbaan islaantiisa kama badiyo sooma marka wax badan baa isbedelay oo nafti waa daciif maxaad u baahan tahay marka ramadaanka inta soo jaanisoood haysato oo naftaadii daciiftay waxaad u baahan tahay marka in aad dagaal adag intaad ku qaado ramadaanka inaad meel fog kaga soo hadho adiga ninka adkaan jiray oo waligeeba ku lagdi jiray hadda jaanis u hesho maalin maxaa lagu sameeyaa maalin baad laga day sidoo ku lagdi jiro kaaga adkaa oo maalin ka adkaata maxaa la sameeyaa marka yusadibta baku soo kicine hubso soma meel ku hubso ilaa haduu soo kaco waa ninkii ka adkaan jiray uu ku lagdi maxaa la rabaa marka meel uusan ka soo kicin oo dib dambe uusan ku soo maangaarsi waxaan ka wadnaa ramadaan haddaad khayrka iyo dadaalka meesha ugu dambaysa ka gaadho naftaadu sahayda ay qaadatay bil bay ku wadi sanad dambe ku wadi ramadaanka dambe ku gaarsiini marka dambe ha soo daciifto xogaa ha soo dib ha soo noqoto ha soo yara gurato laakiin mudday fogaani muddo ayay kaasi maqraan oo sii wadani oo tirri jaanis kaasa markay noo yaala soo jaanis weyn ma waa jaanis loogu talagalay nafta in la daahiriyo nafta la taskiyeeyo nafta la nadiifiyo nafta laga shaqeeyo cadawgaaga ka adkaato shaytaan ka adkaato oo naftaada ka adkaato oo aad khayrkaagii aakhiradaadii aad dhisato yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala bishan ugu talagalay daaca intaad ramadaan gudihiisa samaysan laga aqbalay waa wax weyn laakiin wax weyn oo ka weyn in aad ramadaan kala dhaxbaxdo adoo naftaadu meel fiican ku gaadhay adoo naftaadu daahir noqday adoo nadiif noqday laana waxay ku anfici doontaa muddo dheer oo kala ku sii socon doontaa oo khayr badan ay la imaan doontaa biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala warka murtidiisu wax weeyaan nafteena aynu fahanno
waxay inaga mudan tahay in aan kula dhaqanno daba socodkan daba soconnana aan ka joogno meel xun bay inugu wadaa wa amma man khaafa maqaama rabbihi wa naha an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa janno laba shay baa lagu galaa sida aayaddu sheegtay inaad rabbiga hor istaagiisa ka baqdo inaad la kulmi doonto waa mid labaad ee naftaada waxa ay rabtana inaad ka celiso xumaanta ay rabto haddaad ka celin weydo waata nabigu tilmaamay xuffati الnaaru biالشhahawaat wa xuffat اljannatu bilmakaarih naarta waxa xayndaab u ah waxay naftaadu jeceshahay jannadana waxa xayndaab u ah waxay naftaadu neceb tahay maxay neceb tahay naftu daacadii janno lagu geli lahaa bay neceb tahay tii janno ku geyn lahaydna taa weeyaba naartana maxaa xayndaab u ah shahawaadka iyo waxay naftu rabto haddaad ku sii daysato iska daaq iska cun iska samee ood iska daba gasho xaggay kuu wadaa shaki ma laha inaad adduunna khasaari qabrigana ku khasaari qiyaamana ku khasaari naarna aad geli oo khasaarihii abadiga ahaa si ilaahay khayrkana aynu la qabadsiino xumaantii wixii shar iyo dunuubana aan ka goyno jid fiicanna aynu qabadsiino tawfiiqda allah ina waafajiyo allana tabaaraka wa tacaala nufuusteena allah inoo daahiriyo ilaahay sharkoodana ha inaga qabto nabigeenu sal alla alay wasalam furfurashadii khudbadii aynu ku furfurannay ilaahay buu ka magangeli jiray nafta sharkeeda ilaahay inaga ilaaliyo oo ilaahay inoo daahiriyo oo allah inoo hagaajiyo oo shaydaanka allah inaga qabto oo rabbi tabaaraka wa tacaala khayrka bishan barakaysan ee ramadaan hayna waafajiyo wax kastoo uu jecel yahay wax kastoo xumaanana ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga ilaaliyo sida ugu fiican kuwa uga faa'iidaystana allah inaga dhigo kuwa loo dembi dhaafana allah inagu daro ilaahay bishaa barakaysan ee ramadaan nabadna haynugu gaadhsiiyo bishaa dadka la xoreeyo oo la cafiyeyna allah inagu daro khayraadkeedana allah ina waafajiyo جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء شيخنا محاضرات قيمة بدن كسب سنة تزكية النفس في شهر رمضان نفته لطهره لا يتكتر دنبيه بشهر رمضان انت اسمعوا اكيد الله وحاولنا نو انفعه شيخنا إلهي حاويان أسارو ميزان كيس حسناتك أوقع نسي إن شاء الله عقلي سي علمي سي إلهي أبركي أنا كان كوي وأنا سقط إلهي نقديه أنت سكدب وحنقول ذكرنا إن شاء الله برنامج كيني فتاوض أنكم نقول إيراني إن شاء الله شيخنا سائلك أوه الرئيس هي إني أحبك في الله شيخ أمل سؤالي أبي مات وعمره أكثر من 60 سنة آبه بردنتي سوى عمره سو كبديه لحنا سنة وسوى من جري انت بدن لكن بشمونا دميستري جرين ما نقرنا انت كتكت مركم حاسة مياه نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين وحلية هاي من مات وعليه صيام صام عنه وليه روحي دينتا isagoo soon lagu leeyahay waxa ka soomay ruuxa qaraabadiisa ugu xigtadiisa ka soomaysa xadiidkaas uu ka qaatay imaam Shaafici alayhi rahmatullah soonku ama ha noqdo midka waajibka asalka ah ama soon si kale ku yimid waajibnimadiisa nadar iyo ku yimid ha noqdee ruuxu haduu ku dhinto isagoo soon lagu leeyahay waa laga soomayaa حديث كاساكو تصيا ولو إمام أحمد يعلم كلا إليه النذر يصومك وسكوا تبي ويا كأصل كلايس كما الصوم إليه لكن حديث كظاهر كيسوي إمام الشافعي كقاطي لكن وحمش كتيرة روح الصوم كي لقولها بهدان لجرنين إن أنتو دنيا هاي وحلا الصوم ولا جرن ماي واحد هو بتهدو ترى أما ملها وأبدينا يو أبدينا هاي كصون هدان جرنين وحو أهانا صدقات أبدي صدقاتك أبدي وكل بتبرت هذا ساجدة عيلشة وبها أمد أنفعية سكينة صدقة أبدي إن شاء الله تعالى والله أعلم
sheekhana ilaahay ku barakeeyo saa'ilka xiga wuxuu leeyahay waxaa ligu leeyahay 4 bilood oo soon ah yacni 4 sano maana soomin 2 sano waxaan ahaa uur 2 sanana ilmaha nuujinay marka sababashii dhaafay maadaama ay farbateen ma u bedeli karaa fidyo ma bixin karaa haweenka uur kale iyo kuwa ilmaha nuujinaya way afuri karaan xadiiska nabigeena ku sugantay sallallahu alayhi wasallam xadiiska Anas ibn Malik al-Ka'bi oo Abu Daawud iyo qeyrka ay wariyeen nabigu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ka dajiyay haweenta uur kale iyo midda nuujinaysa wuxuu ka dajiyay Allah tabaaraka wa ta'ala soonka ayuu ka dajiyay soonku ka dajiyay waxay ka fahmeen culimadu bimaana way iska afuri karaan hadday afuraan maxay gadaal ka sameynayaan bay culimadu ku kala aragti bedelayeen marka waxayna u badan yihiin maalmihii ka tagay bay qalaynayaan markay jaanis helaan oo uurkan iyo ilmahan loogu cudur daaray waxoogaa wax iska bedelaan marka ha qaleeyeen maalmihii dhaafay sidaas marka laga rabaa gabadha 2 sanana nuujinaysay 2 sanana uur lahayd 4 sano ramadaankii ka tagay xilligay jaanis hesho ugu horeeyay ha qalayso xilliga ugu horeeyay jaanis hesho ha qalayso waxay ka fudmi tahay diinteena fudaydkeeda ka mid laana hooyada nuujinaysa ilmaha nuujinaysay ilmuhu wuxuu nuugaya nafaqaysanaya waa waxay cunaysay cabayso Sooma ayadiina naaskeeda marka la dhaadhiyo way daciif hadayna wax isticmaalin ayadana waa loo danayn ilmahana waa loo danayn تأور كله ويبكسي درن تهيبا ilmuhu waa ka daciifsan yahay wuxuuna ilmuhu nafaqaysanaya waxay hooyadu isticmaasho haduu waayo waa daciifaya ayadiina uur bay leedahayo waa daciif sidaas daraadeed sharaacadu meelahaas oo kaleeto fudayd iyo yusri iyadoo ku salaysan bay hadana sii fududayni ma ja'ala alaykum fi diin min haraj ilaahi diinta cidhiidhi bay idin ma geliniba gabadhaas markay gabdhaha la midka ah sidaas ay sameynayaan oo soo in gabdhaha wax loo raadiyo ma gabdhahaasi ummadii bay tarminayaanba ya taran bay wadaan ya rag iyo gabdha iyo noo dhalayaan way mudayiin marka in sharaacadu xoogaa loo fududeeyo way mudayiin hawl culus bay hayaan hawsha gaala inoo diidantahay bay hayaan gabdhaheen intay dhalitaanka ka saaraan ya bay waxay rabaan inay wasiirad ka dhigaan geedaha beerta wasiirad geedaha beerta rag iyo gabdhay beeraysa markaas ay leeyahay ka soo tago kale geedaha beera ya war bini aadan in la beeriyo in geedaha la beero geedka ya ilaahay baan idinku dhaariyay mal fiirsada gaaladu maskaxda dadka ku ciyaaraysa dumarkeeni baa xataa ku ciyaaraya markaas waxa laga dhigay gabdhihii inay dhalaan oo ilmaha koriyaan waxa laga dhigay xabsi baad ku jirtaan waa la idin gumaystay ka soo baxa meesha oo xageed noo wadaan kaalay rag la tartamo xaqiina dhacsada kaalay xaqiina dhacsada markaas gabadhii geedaha beeraysay baa ka qiimo badan gabadhii ragga iyo gabdhaha beeraysay marka gabdhahaasi dhalaya ee taranka badinayay shariicadu mudnaan khaas ay siinaysa haday intay muddadu ku badato ay qalayn kari weydo lafteeda xataa fududeyn kala loo sii sameeynaya oo saxaabada qaar kamid ah iyo fuqahadii qaar kamid ah waxay qabeen raashin bay markaa bixinay muddadii ka tagtay haday soomi kari weydo badato raashin bay ku bedeli markaas ay sadaqayn wallahu a'lam sheekhana ilaahay ku barakeeyo سائلك حيو حليه ما دام بالبركة سنفود النقص حيسو بشنا عوضة عبادة قيام الليل للرهب سدح مساجد البركة سما أجنه جماعة صلاة اللي كذا وكفت لبديه صلاة مساجد اللي كذا لكن مساجد كلا ما جماعي كذا وحاول مساجد كدوم مساجد كجماعة بدن مساجد كجماعة يرمى كلفت لبديهين لو فايدة إن شاء الله horta salaada taraawiixda in kooni loo tukado iyo in dadka lala tukado sida badan qaalibka waxa fadli badan in dadka lala tukado
nabigeenuna sallallahu alayhi wasallam saxaabada wuu tujiyay markuu habeen muddo tujinahayay ayuu joojiyay markaasaa waxay ku yidhahdeen yaa rasuul allah low nafaltana baqiyata laylatina haadihi habeenka inta noo hadhay maad noo siyaadisoo noo wadi markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ruuxii imaamka uu la tukanayay imaamkiisa la istaaga ilaa intuu salaada ka dhammaysanayana la tukada waxaa loo qorayaa sidii isagoo habeenkaas oo dhan tukanayay habeenka inta soo hadhay waxaa lagu qorayaa sidii adoo tukanay oo kale fadliga marka waxa iska leh oo xadiidku nasku yahay ciddii imaam la tukanaysa marka inaad jamaacada la tukato wayna ka fududahayo markaad keligaa tahay ama qur-aankii ma xifdisnid ama haddaad xifdsan tahay waad caajisi laakiin markaad dadka la tukanayso waa fududahay taa waa qodobka labaad masaajiddu say u kala fadli badan yihiin nabigeenna waxaa ka sugan sal alla alay waslam inuu yidhi salaatu rajuli ninka halka ruux salaada uu tukado ma salaatu rajulayni azkaa min salaati rajul laba ruux salaaday isla tukadeen yaa ka fadli badan hal ruux salaaduu tukaday saddex salaadooduna waxay ka fadli badan tahay laba ruux afarna waxay ka fadli badan yihiin saddex mar kastoy jamaacadu sii badatana way ka fadli badan tahay midda ka yar salaadaha waajibka iyo kuwa sunnada ee jamaacada la jideeyeyba saas daraaddeed masaajidka jamaacadiisu badan tahay waa sii fadli badan yahay mid kalena ku darsada oo masaajidka deriska kula ana xaq buu leeyahay masaajidka deris kula og ee xaafadaada ku yaallay isagana xadiista nebiga waxaa ku soo aroortay isaga ku tukadana waa soo aroortay oo haddii la yidhahdo masaajidkii deriska laga wada cararo soo masaajidkii xaq ma lahayn sidaas daraaddeed muxuu ahaayey jamaacada masaajidda maadaama lagu wada tukanayo ruuxii midkaa jamaacada badan aadaya waa heli karaa laakiin xaafad walba in jamaacaadka masaajidooda lagu oogo aad bay muhiim u tahay wallahu aclam sheekhana jazaaka allahu khayr jazaa haddaan ka yarnasana su-aalaha ku saabsan ramadaanka gabar ayaa maraykanka waxay ka soo qoratay su-aashan waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh kaniino laba nooc ah oo aan qaadanayay ayaa waxaan ogaaday in mid ka mid ah waxa laga sameeyey ay ku jirto alcohol kan kalena waxaa laga sameeyey waxaa ku jirto jalanti oo ah dufun xoolaha laga keenay laakiin aan la ogeyn inuu doofaar yahay ama xoolaha kale marka sheekh waan joojiyey si aan u hubsado dad baa laakiin waxay igu leeyihiin ama ay dhahayaan waa la qaadan karaa jazaaka allahu khayr mas'alada ku saabsan daawooyinka iyo xaqaqiirta iyo waxay ka samaysan yihiin haddii ay daawadu ka samaysan tahay shay nijaaso ah ama dufan bakti baa laga sameeyey ama doofaar baa laga sameeyey sida daawooyinkan jalatiinta ku jirtoo kale laga yaabo inay neef yacni noole bakti ah ka soo jeedo ama doofaar oo kale ka soo jeedo waa iska dhici kartaa gaaladu wax kastay ka sameeyaan iyo daawooyinka sidoo kale ay ku jirto alcoholku ku jirto alcoholku waa khamri waaye nooc khamrada ka mid ah xukunkeedu xukun khamri waaye wabitaali lama cuni karo lama cabbi karo masalada madaahir baa mise madaahir maa masalo kale waaye laakiin waxa ay qur-aanka nasan inaan la isticmaali karin oo la cabbi karin aan la cuni karin qur-aanka caddeeyey daawooyinka marka ay ku jiraan waxyaabahaasi bay su-aashu ku saabsan tahay culimmada waxay leeyihiin haddaad heli karto daawo badiilkeeda ah oo booskii kuu geli karta alcoholna aan lahayn jalatiinna aan lahayn haddaad heli karto waa laazim inaad isaga tagto daawadaa kala qaadato haddii la waayo iyadana waxaa loo kala qaadayaa cudurka ruuxa haya inuu ka kaaftoomi karo daawada iskaalmaatii uu yahay mooyaane laakiin uusan khatar weyn gelayn hadduu iska joojiyo iyo hadduu joojiyo inuu halis galayo hadduu joojiyo halis galayo
markaasi wuu isticmaali si naftiisa uu nafta loo xifdiyo oo markaasi xaalad daruuray imaan baktigii nijaasada ah ee xaaraantahaba markaa waa la ogolaano si nafta loo badbaadiyo waa haddii la yidhaahdo weli labadooduba nijaasanimadii bay baaqi ku yihiin ra'yi kalaa jiro culimmada qaarkood ay qabaanoo maadadan daawada ku jirtaay waxaa ku dhacay wax la yidhahda istixaalada waxaa la yidhaahdaa shayga oo isbedelay oo sifaadkii uu lahaa dhammaantood lumiyey oo wax kale ku soo baxay miaal fudud baad ku garan kartaan saxarada bini aadamka soo nijaaso maaha saxarada bini aadamka haddii la gubo oo dab inta la geliya ay gubato oo dambas noqoto dambaskaasi ma nijaasa mise waa daahir yaa faqiih oo ka jawaabi waa daahir nijaaso ma aha oo sheekh uun xaar gubta weeye say nijaaso ku tahay soo ma aha sax waaye waa xaar gubtay laakiin hadda meesha markuu yaallo muxuu yahay waa dambas urkii male oo dhadhankii male oo midabkii male kulli way isbeddeleen soo ma ah sidaas daraaddeed maaddo kaloo dambas la yidhaahduu noqdo xugum kaluu qaadanaya xugumkii saxarada iyo xaarka waa isbeddelay miaal kaloo ka fudud baaba jiraba oo hadda idin dhex yaallaba meelo fara badan biyaha la cabo adduunka waa biyaha musqulaha marawey biyihii aan xaarkiiyo kaayada isaga dhaqnay unbaa inta la ururiyo oo dib loo faltiraareeyo oo daawooyin lagu daro oo qashinkii laga saaro baa tuubooyinka dib loogu soo celiyaa markaasaynu cabnaa waan ku weysaysanaa oo ku qabaysanaa oon isku daahirinnaa ya sarfu sixi baa la yidhaahdaa ma nijaasa maya shalay markay xaarka la socdeen oo urayeen bay nijaaso ahayd maanta laakiin haddii sifaadkii oo dhan ay lumiyeen oo wax kale ku soo baxeen waxay hadda yihiin bay xukunkiisa qaadanayaan masaladaa ma fahanteen istixaala la yidhaahdaa waa shaygii oo isbedelay waa khalqii khamradii oo intay isbedeshay khal noqotay xadiisku ku yimi khal markay isu bedesho waa daahir bal waa la cuni karaa waa la isticmaali karaa shalayna khamray ahayd laakiin maaddadii wax waalaysay yaa ka baxday wahaakadaa halkaa marka ujeeddadu waxa weeye culimaa waxay qabaan daawooyinkan ay ku jiraan waxoogaaga alkoholka ah ama waxoogaaga jalaatiinkii uu ku jiraayey markuu hadda daawadan ku dhex jiro waa isbedelay canaasirtiisii oo dhan waa lumiyey urkii male dhadhankii male muxuu ahaaye midabkii male wax kaluu ku soo baxay maadaama wax kale uu ku soo baxay waaba daahirba waa la isticmaali karaa halkaana culimada qaar baa maraya almuhim waxa weeyaan intaan soo sheegnay haddaad heli karta daawo badiilana ku bedelo haddaad weydood ka kaaftoomi kartana iska daa haddii aadan ka kaaftoomi karinoo khatar gelaysana isticmaal ama ku isticmaal culimmadoo qaar qaba way isbedeshay ama ku isticmaal culimmadoo qaar qaba waa daruuro oo waa xaaladdii nafta la ilaalin lahaa wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء شيخ أنا سائلكم وحول لي السلام عليكم وحن سلام يا شيخة أنت كذب أنا صومن بقبر أكتي إذا مرتي كذب درين أياي قلي ساس أياني بيه إيجي مالين بسم الله الرحمن الرحيم ninka horta waxaan dhihi lahaa afar dumar ha loo guuriyo maxaa yeelay waa lil ummadda badin lahaa wey marka taa kadib haddii isagu uusan biyaha ka yimid uusan ku imaanin ficil uu sameeyey oo ama ishiisoo ku dhacday islaan uu arkay bay biyihii kaga yimaadeen mujarad ishiisu ku dhacday ama daawasho ama hadalkeeda uu maqlay ayay biyihii kaga yimaadeen fal uu sameeyey oo rasmiya ma aha
badanka culimadu waxay qabaan marka inaysan soonkiisu jabayn laakiin hadduu fal uu sameeyey ay ku yimaadaan oo aan ahayn markaa haweeney buu taataabtay wuu dhunkaday masale kale waa laakiin hadduu gacanta biyaha isaga keeno ama siigaysiga waxay Soomaalidu yiraan sameeyo sida biyuhu kaga yimaadaan culimada badankood waxay qabaan soonkiisu waa jabaya maalinka inuu soo qaleeyo waaye ama hadday siyaabahan kale iyo arag iyo taabashay iyo muxuu ahaayay ku yimaadaan maqal iyo markaas culimo badan waxay qabaan soonku ma jabayo soonkiisa waa wadanaya hadduu wax khalada sameeyayna dambi gooniye weeyaane ilaahay toobad ha weydiisto oo naag ajnabiyada hadduu daawaday te waa dambi goonidiisa soonkiisa ficlan waa dhaawacaya laakiin ma jabinayo hadduu maalan naag ajnabi ka ah sheeko la wadaagay oo tahay sheekadan dhalinyaradu waayahan ay wadaan sheekadii odayaashii hore ma ah khiyaartii hore sheekadooduna mid bay ahayd dhalinyarada maanta joogta sheekadooduna waa mid kale dhalinyarada maanta joogta hadday sheekadooda tahay ilaahay dambi dhaaf weydiiso hawl waxaa meesha ku jirta khaldan marka haddii qaab khaladood samaysay ay wax ku yimaadeen ilaahay dambi dhaaf weydiiso ama ma jabaysaa sida aan u kala qaadnay ay culimada qaarkood u kala qaadeen qaarna waa isku duuduubayaan waxay leeyihiin soonka wada jabaya wallahu a'lam jazakallahu khayr jazaa sheekhana saailkan wuxuu leeyahay sheekh Allah ku barakeeyo waxaan ku weydiinayaa xoolo aan ugu talagalay zako dad ma ku afurin karaa zakada xoolaha ay ka go'day masaakiinta ku wareeji haddii xoolahaas ka go'ay zakadaada ay yihiin lacag yihiin waxba raashiin ha ugu iibin hana ku afurinine gacanta ka geli ayaga cuntada in looga daran yahay waa dhici kartaba Sooma dhar ha ku iibsadeen isku daaweeyeen caruurta fiiga ha kaga baxsadeen cuntada way iska helayaan lacagtooda si laana wax weeyaan uguma tasarrufi kartid adigu zakadii ayaga tasarrufka iska leh adiga waxa la rabaa xoolahaagii soo geel kama bixin neefkii geeleed heshay laftiisa bixi geel bixi allahumma inaad neefkii sakada u qalmay xoolahaaga ka weydo oo markaa lacag ku qiimayso ama ari lagu qiimeeyo mooyee sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ama zakadii go'day ee lacagta ahayd masaakiinta lacagta si adiga hadda dad afursanayso xoolo kale malaha waad haysataaye afur ka samee ama zakada sideeda masaakiinta u gaarsiiyay wallahu a'lam jazakallahu khayr jazaa sheekh saailkan wuxuu leeyahay waxa lagu leeyahay soon inta maalmood uu yahay ma garanayo meeqa ayaan soomayaa quraan waa jawaabay ruuxa soonka lagu leeyahay waxa laazim ku amaanaha soonka lagu leeyahay inuu san luminin inkastoo ibn aadamku iska halmaan badan yahay haddana dayac baa geli kara maalmo lagu lahaa oo aad halmaantay dayac baa geli kara haddii halmaankii dhacay maxaa laga baahan yahay waxa laga baahan yahay intaad dadaasho isku daydo inaad xusuusato xusuustaada wixii malahaaga aad u badiso soon oo qalle kadibna soonka sunnaha badso haddaad u badiso inay 10 bari ahay 10 bari qalle kadibna soonka sunnaha badso maxaan u leenahay soonka sunnaha badso laana xadiiska nabiga soo ku sugan sallallahu alayhi wasallam adoonka waxa ugu horeeya maalinta qiyaamada laga xisaabin doono waa salaada waajibka la iska xisaabinaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadii salaadiisu hagaagto cibaadaadkii kale oo dhan waa la hagaagay waa raacay hadii salaadiisi hagaagi weydo alla naxariistiisa wuxuu leeyahay adoonkayga fiiriya wax sunna ama leeyahay wax salaad sunna ama leeyahay salaada sunna hadii la helo waajibkii wixii khalal ee galay baa loogu buuxinaya saasa marka ilaahi tabaaraka wa taala ugu naxariisanaya cibaadaadka kalena marka waa la mid soonka waxa kaba waajibka ah sunnada kabta wixii marka halmaan iyo khalal iyo xogaa dulduleel gal cibaadaadka waajibka ah sunanka loogu talagalay inay buuxiyaan oo kabaan marka intaad xusuusatana qalle
wixii aad xusuusan weydana soonka sunnaha badso wallahu a'lam. جزاك الله خير جزاء شيخ سائل كان وحول لي وحاجة لدد مالك صومة مالك ودن ويجيفان سنادها أنا وقت الدنبا ييتو كدان حبين كدن نوي قيلان صومك أجر كيسين ميهليان صومك أدينا سيهانتي ستشبنين وي إلاليان وي نيدي لي مادان maalintiina wixii soonka jabin la iska ilaaliyaan soonka cibaado gooridiisa u asaxday way amma in ay maalintii hurdaan oo ayna cibaadaysanin oo hurdo ku dhameystaan hadayna salaadaha waajibka ka tagin way waajibka salaadaha tukadaan طبعا waa laga fiican yahay oo dadka cibaadaysanaya ka fiican لكن هذه سلادها واجب كاتوكدان صون كينا إلاليان وحي كلا يقصهيان والدم بمدح بنان الجهة منفكة ولا بجهه كلا مدح بنان صوما من كان قاد كانوا معنا هيو حساب قونية وي صون كهدو الصحنة وحساب قونية صلاة هدو الصحو وحساب قونية سيجارك وعبينا وحساب قونية صوما لديه مايو ورنيه مربى هدادا سيجار كدينين صلاة إسكده مساس راينا ما هذا يسوع تكو صون بل ودنا إنه إلهي كاجو يبري والدلال إنه قلنا ندعو عيننا صوما لكن مرة البوحميش كتيرة بشي بركة السنة دي الله بهنا سيدي الربعين لوجا فايديستو أيو كده سنة هاي عبادة دي الصون كأي الصلاة دونا sidii la rabay haduu u sameyn lahaa qaadkana way ka goyn lahayn sigaarkana way ka goyn lahayn ya quraanka ilaa wuxuu ku yiri inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar salaadaadu hadii sidii la rabay ay tahay xumaanta iyada ku diidi hadii xumaantii ka reebi weydo salaadu ma burin way asaxday laakiin salaad jaban waay salaadaada waxba si ka ah صونكي أتسوميسي إنه كاقبت إيه حمانتا وإلهي القرآن كم حكوا يري يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما قدم به لعلكم تتقون صونك وإنه كل حلسي الله كعبسي حمانتا وإنه كاعلي هدو كاعلي ويو بمعنى الصوم كاجي وحبا كردي من سيدي للربي ما وبري معها لكن صوم كاجي سيدي الربي معها سيداس درادد ماشا وحا كم وقت الروح بشهر رمضان صوم يا عبادة سنة يا هدنا قصنا يا الدنبية ده وحلين هي عبادات كيسو سيدي الربي معها لكن هدنا عبادة ده هدي شروط دي لي ما دوا الأقبلي صون ديته صلاة ديته دنبية ده وقلي كلته جوني ده أنا حساب جوني إلهي كلا حساب تمام أما ودافي أما وكتبت كيني ويه والله أعلم. جزاك الله خير جزاء شيخنا سدح سؤال كبحسن صونك أيام كسوق بجمين دونا قبل أيام وحيل هذا هاي منك يجود انتي مهر أسوأ نسينين مركم وعفين كلام أسوأ كل هاي وحيصير عسي أصي أيام يسارا ما يسكا قاضا مسوى حرنا ذا مهر كذي نكذي يردنتي ونسينين ويعفين كرتاه isagoo noolna way u cafin kartaa hadduu dhintayna way u cafin kartaa ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka buu inoo sheegay fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a meherkii marka dumarka u magacawdaan oo meherkeedu ay yeeshaan wax kamid ah haday idinka raali noqdaan oo idin siiyaan cuna asagoo wanaagsan oo hunguri mar leh oo boogaagsi leh ya ka qaata suuratu nisaa Allah tabaaraka wa taala macnaha soo kala ku sheegay marka dumarku meherka iyaga xaq u leh way saamixi karaan isagoo ninku nool yahay way saamixi karaan hadduu dhintayna way saamixi karaan gabadha way saamixi kartaa waliba inay samaxda fiican
xusnul cishray ka mid tahay ninkeedii oo ay jeclaayeen hada in qabriga loogu haysto dayn iyadu ay ku leedahay ma fiicna iska cafi raggana waxaan dhihi lahaa gabdhaha meherkooda siiya Soomaali meelahan ka ibtilaysanaa bay ka mid tahay raggana hadda masaajidka fadhiyeen xaasas kale haddii hadda layna tiriyo inta dumarkooda meherka siiyay farakudiris bay noqonayaan waa hubataa iyada Soomaali baynu nahay Soomaa waxaan u haysan anigu garan maayo keena milyaneerka ee hantidiisu meel kala dhigala meherkii waa lagu leeyahay ruuxan waa dayn waa xuquuq waad ku dhiman haddaad dhimato waxaa dhici karaysa in islaantii soo taagdo tira ma bacfinayaba ood qabriga ku gubato adoo xoolo lahaa gabdhaha siiya xuquuqdooda waatu nisaa saduqaatihinna nihla siisma ilaahay siiye way maxaad u haysataa adiga siiya buu rabbi tabaaraka wa tacaala hawshaa marka dhaqan soo jireen ah oo qaldan waay Soomaalida dhaqamadeeda qaldan buu ka mid yahay ilaa waxay gaadhay dhaqankaasi inay gabdhihii ku qancaanba haweenta haddii la yidhaahdo meherkaagii baa lagu siinaya inay u qaadato waa lagu furaya dabcan waa dumarkii hore way ku hadda jooga ma kuwa hadda joogay xoog bay kaaga qaadanayaan iyagu kuwii hore baa dumarkii soo jiray meher halaysiiya ka baqi jiray waxoogaa muxuu ahay miisaadka khaaska lahaa way hadda laakiin waa la xisaabtamay iyadoo la isuba imaanin baaba yaaba gorgortan la geli Sooma haddii la isu yimaadana hadda waxa way gabdhuhu xuquuqdooda waa qaadan karaan ceeb maaha xuquuqdooda ha qaataan ninka ha weydiistaan hadday u tureen ha u tureen hadduusan haynin ha ka sugaan laakiin inay tiraahdo meherkayga si ama ay qaadato ceebna ma furitaanna ma waa xaqeeda ilaahay siiyey ragguna ha ka dadaalaan xuquuqda dumarka waa xuquuqda ugu muhiimsan bay ka mid waa mid Allah ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala waa xubinkeeda taranka waxyaalaha aad ku banaysatay baa waxa ka mid ah meherka marka ha laga dadaalo wallahu a'lam sheekh waxaan kusoo gabagabaynaynaa su-aashan saa'il baa wuxuu leeyahay waa la xiray oo xabsi baan galay maalinkii koobaad oon galay waxaan islaa waad ka baxaysaa maryihii baa nijaasa iga gaartay salaadii ma aanan tukan maalinkaas iyada ah caawaad ka baxaysaa saan u lahaa 5 maalin bay igu noqotay 5tii maalinba ma aanan tukanin waana awooday inaan isdaahiriyoon tukado laakiin ma yeelin marka maxaa sameeyaa ruuxaasi waa qaldamay waana khalad salaadu sina kuma dhacdo salaadu ruuxa waxay kaga dhici kartaa inuu miyirka lumiyo maankaagu iyo miyirkaagu intuu joogo salaad waa lagu leeyahay adu ama xabsi ku jir ama doon saarnow ama geed korkiisa harrow marba haddaan miyirkaagu lumin salaad waa lagu leeyahay see ku tukane sida aad awoodi karto ku tuko laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha fattaqullaha ma istata'tum alla wuxuu ka rabaa inta karaankaaga ay caadi saas ku leeyahay ma aha waxaadan kari karin kugu kallifi maayo nabigana wuxuu sallallahu alayhi wasallam idaa amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum amar haddaan idin siiyo inta karaankiina kala imaada waxaydan kari karin idin kuma kallifi xabsi baad ku jirtaa mariyuu waa nijaas jirkaagu waa nijaas ma weyse qabtid meeshaad ku tukanayso waa nijaas tuko sida ku tuko jirku waa nijaas maradu waa nijaas meeshaad ku sujuudayso waa nijaas kulli waa wada nijaas nijaasta ku tuko salaada aad saa u tukatay ma soo celin mise soo celin maysid fuqaha murmad culimadii baa murmay waxaase xoog badan daliil ahaan inaadan soo celinaynin yaa warsheeqo maxaad ii saari sagaalka salaad kale tii ilaahay faray waan tukaday soo ilaahay ma dhihin inta karaankaaga iga baq intana karaankayga ahay waanan sameeyey sheekhow salaad kale xageed iga saari soo saas ma saas daraadeed xaalad salaad u dhacaysa ma jirto xataa culimadeenu waxay qadareen imaamu shaafici iyo keyrkiiba fi lum kitaabkiisa waxaa ku qoran haddii ruuxu uu qaawan yahay
maraba ma qabo waa mur muxuu sameynaa fuqahada qaar waxay yidhahdeen dhoobaha ismarmariyo ha tukado qaarna waxay yidhahdeen siisaa ku tukado salaadu waa sax way socon xataa waxay qadareen oo yidhaahdeen jamaaco wada qaawanoo wada mur ah hadday wada tukanayaan say wada tukanayaan ya imaamkoodu miyuu hormari mise wuu la sinmi ilaan culimo waxayna ka hadlin ma jireen imaamu shaafici baa umka kaga hadlaya waqtigiisu goormaa imaamu shaafici caleyh raxmatullah marka salaad waqti salaad dhacda ma jirto nimayow soomaaliyey salaadan marada iga nijaasa ah wax jira maaha salaada sheekh marada iga nijaasa war tuko adoo iyadoo nijaasa haddaadan wax kale heli karin iyadoo nijaasa tuko waxay fardiyeen hadday maryuhu nijaas yihiin oy ka hadleen ma maryaha nijaastaa buu ku tukan mise intuu iska furo isagoo qaawan buu tukan ya qolo waxay dhaheen kuwa nijaastaa ku tukado qolna waxay dhaheen meehe war intuu iska furo isagoo qaawan ha tukado kullu dalika maxay tilmaamaysaa kullu dalika waxay tilmaamaysaa salaad xaalad looga taga ma jirto midbaa wuxuu ku leeyahay bas baan saarnoo sheekh muxuu ahay layma istaajinahay gaadhi baan saarnoo layma istaajinahay war korkiisa ku tuko diyaarad baan saarnoo maba istaagaysa maraykanka u socotaa ku tuko iyadoo socota hawada ku tuko ya kursigaaga ku tuko rukuucdiiyo sujuudda ishaar wayse haddaad weydo diyaaradda meesha la marahayo maaragta ee lugtu marayso halkaa intaad gacmaha saarto boodhayso soo maaragta derbiga saar gacantoo boodhayso ka soco tuko laakiin wax la yidhaahdo salaaddii ama salaaddii muxuu ahay cishaan isla wada tukani cishaan sax salaado la isla tukan kara waa jiraan laakiin salaaduhu kulli waqtiyay leeyihin saas daraaddeed ninkaas waxaan leeyahay khalad baad samaysay xabsiga maalmaad ku jirtana salaada ka tagtana waa khalad waxaad samaysaa salaadihii kaa tegay si deg dega usoo qallee ilaahayna dambi dhaaf weydiiso oo u toobadkeen wallahu aclam ها مسألة الصيدة السؤال اللي سعوت ما يسكر لقابة تريقونه الصيدة إن أديكت وقت بيكون حرنت وقت جي مرة ما يستطيع مثل ماذا ما يسني هذا الأور لهينا سيدا قرآن كشيء أفر بلادي يتبين بري بعد الصيدة وضيس عدة كتير يساوي الصيدة الصومالي سوتقان أفر بلادي يتبين بري والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذين أور لهينا هذين أور لهينا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إني أمشو أيك الصيد كله ويكجب حيس عدة هذا أفرتي بلادي توبنكي بري آدم قاري أما أور بالله إذا مركي اللجوفرة هي ولي ماذا أمولين تسيد عدة كله جيس أما سيد الصيد كله جيس هذه معناه وياهي عددي مكب حي هذا كبرده كوده مرضي عديد زوارد وقبلها أحد يشترين مركل لقد انتو مرضى ما يسكرني كره هذا كودنا تور مدايدا أو جب صوت بحيتها يا يري قبلها مركل لقد انتو مرعى الله حلو جنب بعض ماذا حلو قال الله دي وضدك كده فرتها قصة في قيرة واتي لقد انتو أسيب يسدا يا يري الله حدينه قبته ما جرت رقم صومالي واحد أصلنا ملك كوارد مركي الدكو جرتو وحيابه إسكا إلاليني وحياله أدقون بإسكا إلالين وحياله قرقر حسن الدمر كسكو قرحيان بإسكا إلالين شيك الجور بإسكا إلالين وحياله شريعة الديدي باتشرة سمعت لكن وحويان إن مرقوني الله سارو وضدك أي تكعن بار لك النقطة تاسي وحويان ورقم صومالي كوارد السؤال شيء هذا السيداس تهو مرضى الصيدة مديك كراهيتهاي مرضى وحبكم أحدنا إسكتور لكن عدة كجرتا إلى أذكر ما يسانيسو ومعناه هذا يهي وحي شريعة كودي ده إسكيلالي أنت عاد عدة كبحيسو والله أعلم بالصواب. جزاك الله خير شيخنا اختيارنا رسالة برينا وقتي كذب تتقابل حليه تبدأها حافظ الشتري وتراعي في النسيج وطلع هذا الرعاة وطلع وتراعه هو كان ورئيس الشتري والعليه marka aytaas baan saxtaa laba kaliya insha Allah taala gabdhaha iyo ruux kasto muslima
asal waxaa inuu xishoodo xishoodkuna waa iimaan nabiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xishoodka iyo iimaanka waa la isku lamaaniyey midkood hadduu tago ka kalena waa maqan yahay xishood darradu diin la-aan bay tilmaamaysaa inay gabdhuhu xishoodaan ragguna xishoodaan xumaanta laga xishoodo bikibikida ama boodhoboodhada ama dhugdhugleyda kolba saa u taqaanaanba gabdhuhu rag ajaaniba inay la fuulaan oo ay ninkii gadaal ka fuusho yaa waa madhar iyo muuqaal aan quruxsanayn ninku waa ajnabi gabadhiin meeshiina waa cidhiidhi way isku dhagayaan marmarka qaarkood gabadhii intay lugaha kala ridato ayayba ninkii iyadii wax u dhexeeyaba ma leh yaa ninkan goormuu ninkeedii noqday waa fuxshi waay waa foolxumo waa xishood darro waa diin xumo marmarka qaarkood gabdhuhu xataa hadday dhinac u fadhiistaan ugandhaan hadda tegey mar dhoweyd gabdhaha ugandhiyaanka asal ahaan ee muslimka ah xataa hadday fuulayaan lugaha intay isku duudaan bay dhinac u fuulaan gabdhihii soomaalida ee ugandha u tegey jaamacadaha ayaa sidii u fuula is yidhi way ka dhaceen waxaan farashi u baahanta gabdhaheenna laftooda inta xadad ay gelayaan maalintii oo lagu dhimanayo oo dhaawac gaadhayo oo dhib gaadhayo oo jidhkoodu faydmayo xad ma laha sidaas daraaddeed gabdhaha waxaan leeyahay ilaahayna ka xishooda waxaan muxuu ahaay iyadoon boodhoboodha jirin oo dhugdhugley jirin baynu noolayn gaadiid caamaa jira siyaabo badan baa ruuxu dantiisa u gudan karaa gabdhahana waxay u baahayeen in la baraarujiyo raggu mas-uuliyad baa ka saaran ninka khaasatan ehelkiisa in badan oo gabdhaha ka mid ah xishood waa ku jiraa laakiin waxaan waa la iska bartay maalin baa waxay soo martay xaafadda isliya anoo dhex maraya jid iyo gabadh baa sidaas oo kale saaran baa isoo dhaaftay gabadhu way xijaaban tahay markay isoo dhaaftay waan ka daba imid ayaa markaan soo gaadhay bay ka degtay markaas waxaan ku dhihi adeer baashan aad saarantao ninka ajnabiga la saaran tahay inay khalad tahay sooma ogid gabadhi way isku naxday alla sheekha way cafi bay tiri mar damba ku noqon maayo marka waxaan ku yidhi ilaahay baa cafiga leh ha ku noqonin gaadiidka la raac marka gabdhaha hadday arkaan mujtamacii oo baraarujinahaya oo ninkii arkaba leynaa iska daa waxan sidaan dajooji waxani waa dhammaanaysa haddii la daayo laga aamuso way dhiiranayaan kuwii xataa wanaagsanaa marka dambe kulli waa la wada geli markaas hadhowna fasaad badan baa ka imaan gabdhihii khatar bay gelayaan raggaa ajaanibtaa la isku laban yahay arrintaasi marka ma saxsana gabdhuhu ilaahay ka baqaan ragguna mas-uuliyaddooda ha qaateen gabdhaha la baraarujiyo xumaantaa insha allahu tacaala madhabkaa muuqda leanna xumaantu hadday qarsoon tahay oo ayna muuqanin ruuxiisay dhibtaa ruuxa samaynayay dhibtaa xumaanta haddii bannaanka loola soo baxo oo wax laga qaban waayana dadkao dhan bay saamaysaa yacni cuquubada ka dhalata dadka way wada gaadhi wixii qarsoon laakiin meelaha lagula jiro inaan ka warahaynin ruuxa samaynaya unbaa cuquubadeedu ku dhacaysaa marka innagana waa inaan gabdhaheenna baraarujinno iyo hablaheenna iyagana waxaan leenahay ilaahay ka baqa oo iska daaya waxyaalaha noocaasa wallahu aclam